فرماجة الشركة يقول لي وراكي يعني اللي لسه هي قرب استاكي وورالكي وصاحبكي وحي فرماجة أو قبتين واحد كل لودان قرب استاكي عنوان اللي قرب استاكي أنت اسمكم بلنا ورور كاسب بين لودان SSC هنولاتو SSC هنو استاذ SSC هنولاتو هقول ليستو هرقلنا وهرعن هرقلنا وهرعن مجاهدين ده هقول ليستانو صوماليا همدادو صوماليا هاسرعو اسمدا يا قرادada iyo gudiyada dhamaan ha guuleystaan وما ستين آدي وما ستين آدي وما ستين وعلى وقت قاون وركيس لقاون هذه ضلعت كراه وقرات وكمدها كاتب بيانا كموس وهذا ما تريد كلمة علينا يا أقبلات سواء جبتين إلى ما تعال كان أتبادان تاجرنا SSC خاتمه نكي أضاها وزير كاي وحيد علي وأحمد قراد كواشاقي يسوي السلام وكل جوابي علي وافق الشني فقشنا هو الرئيس السي صوما قررها ويادنا أرعب يادنا وأن من شرفا يذكر عبد شرفتين ماشى أيضا لدقيه أولا النمو يوناك يا صومال النمو يا دوم النمو يا دنتي حريرتها عطستوي وحنا فرصة أن أوفى إلى السنة إن أنا إلي شاغو ضدك أتاجن قديد SSC دولان كما أهم قبائل إساقل إرادة أو هرقيسي بالعدقن مامون صومالي اللي إرادة دولان كما أهم أنوغونا سيداس كولا بصعدو waxa loo wada tagayaa waxa weeye warnaga jooji ilmaha iyaga halaynina iskuulada naga burburinina subaxii duqayl anagu soo kaleeynina nin kasta gurigiisa inuu maamusha Allah madax baneeyo waa intii aan oran lahaa hadii SSC ay hargeysa weeraraan intii aan oran lahay baan oranayaa nimanka ninka la yiraahdo madaxweynahooda Muuse Xuseen Cabdi bixi waan Anas Xuseen bal yiraahdaa na runtii dood badan oo dadka Soomaaliland muddo badan laba qodob oo ay ku doodayeen ayuu gabaygii iyo doodii ka xiray labadaas qodob maxay ahaayeen waana la duqeeyay magaaladan Hargeysa hubkii yaalabana lagu duqeeyay wuxuu ahaa qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu ahaa waxaana loo diiday inaan ismaamulno haddana wali waxaana loo diiday inaan ismaamulno labadiiba soo hadda ma sameyn Muuse bixi soo hadda hubkii yaalay lascaano kuma duqeynaya soo isagu ma diidan SSC inay aayahooda ka tashadaan hadday sidaas tahay gobonnimo midda ugu weyn oo dhiig loo daadiyo waa inaad haweenkaaga iyo ilmahaaga iyo maxasada difaacato waxaa maanta iskala guusha weyn oo maanta la gaaray qof kasta oo ka tirsan jamaahiirta magaca jamaahiirta aniga 10 sano waxaan u malaynayaa 13 sano ka hor yaa samaystay laakiin dhul bahanta iyo faqashini baa igala wareegay marka aniga uguma harina waa ka dabagalay waxaan leeyahay oo fursaddan uga faa'iidaysanayaa dowladda Soomaaliyeed waa inay garato waxay u taagayeen reer Lascaano waxa lagu dilayo oo dhiigooda lagu daadinayo waa calanka Soomaaliyeed oo loo dhaariyay inuu hogaamiyo dastuurkiisu madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse waxaa nasiib darro ah inaan labaduba sidii ay qunaayeen dadka SSC khaatumo aanay u garab istaagin waa nasiib darro xataa haddii aanay garab istaagin
shartoodii kama badbaadin ee ra'iisul wasaarka xogeenkii dowladda oo xamse oo matala ra'iisul ka hoos shaqeynaya yaa subax iyo galab wuxuu u taagan yahay inuu hagar daameeyo dadka SSC waxaasba wax xamse laga filayaba xamse waxaa leenahay ra'iisul wasaare shaban yu isku xisho adiga matala dadkan kursigooda adiga ku fadhiya xasan sheekh waa madaxweynihii Soomaaliya laakiin awood qaybsiga kursiga reer SSC ninka ugu sareeya ee ku fadhiya waa adiga ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa nasiib darro ah oo saaka aan daawada ra'iisul wasaaraha oo xalay ka hadlaya SSC hadalkiisu wuxuu ahaa waxaan rajaynayaa in xabadda la joojiyo waxaan qiyaasayaa in la wada hadlo waxaan u malaynayaa in dadka la nabadgeliyo warkaas war ra'iisul wasaare maaha war dad nin ummad matala oo qabaa'il kursigooda ku fadhiya maaha war mas-uulna maaha waxa ugu yar ee laga rabo ra'iisul wasaaraha waxaa weeye xataa haddii aanu dadkaa wax tari karin war ninkan kaa hoos shaqeeya oo ay abtiga iyo awoowaha u yihiin reer SSC war ugu yaraan midkaas gacnaha ka qabo wasiirada matala reer SSC war idinkana waxaan idin leeyahay ha ogolaanina inuu idin shirkidoomiyo ninka la yidhaahdo saalax sababtoo ah saalax wuxuu buriyey dastuurkii uu ku dhaartay oo ahaa dastuurka ilaalinaya midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayuu saalax jaamac buriyey idinkuna guddoonkiisa buriya soo sidaa maaha ninkuu yidhi sinaan mayno anna buri sarrayntiisa sadka waa wadaagtaane ma 9 baa tiisu wasiirka boosadu waa inuu bilaabo arrintaas wasiirka arrimaha dibaddu waa inuu bilaabo oo yiraahdo saalax jaamac ima shirkidoominayo wasiirka arrimaha dibaddu waa inuu sidoo kale yeelo wasiirada lamidka oo amnigu ka mid yahay waa inuu sidoo kale yeelo kuwa kalena waa inay Soomaalinimo ku taageeraan madaxweynaha Soomaaliya qodobka ugu weyn ee lagu dhaariyay waa dastuurka waxaa ku qoran madaxweynuhu waa ilaaliyaha midnimada ummadda Soomaaliyeed madaxweyne dadka SSC ee u dhimanaya midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dadka dulmka ku wada ee duqeynaya dhaxdhaxaad ka noqon ceeb ayay kugu tahay fursaddan waxaan ugu faa'iidaysanayaa dee annagu markii meesha aan joogno ma aanna haleelin weliba waa noo hamar jeclayseen oo war maalin naga tegey oo su'aal si nala noqotay yaa nagu hamar jeclaydeen oo iloobi la'dihiin war su'aashii gabadhii waxaa ku ilowdaan difaacitaanka anigu SSC ah wax ka difaacay sababta ah wixii anigu wanaaga oo aan sameeyey farmaajo shirka igula yahay wanaaggii aan idinla sameeyey iyo garab istaagii waa walaalkay waa saaxiibkay wixii farmaajo ah u qabteen waxaad ku ilowdaan garab istaagga anigu aan idin garab istaagay intaas ku ballanaa warkaas ma ilowdeen su'aashii ma ka qaracdeen waa maasidii waxaan ku soo gabagabanayaa arrintii ninkaanu sheego Axmed Garaad niyow mar kasta waxaan isweydiiyaa waxaan maqalnaa cali gari dudulo waa cali gari oo raaya lagu Axmed Garaad oo xawaada waleela ka san ma waan u jirin qof hawiye ah oo dhahaya ama qof alladii qofkaas annaga maana waa hawiye balaa waxaa sir dalla'ana jirta dalla'ana inay si jirin waxaan ka ogaaday kaarayaashii aad daraad ka soo xambaarteen buu hodlay marka waa maasantihiin xaq baad ku taagantihiin isdifaaca garabkiinaan taagannahay habeen iyo maalin intaas ayaan ku soo gabagabanahay waxaan